qiso dhacday sanadkii 2018 kana dhacday gobolka Colorado ee dalka Mareykanka waa sheeko adduunka tustay in nolosha quruxda badan ee dadka soo dhigaan baraha bulshada aysan mar walba ahayn xaqiiqda dhabta ay jirta. Chris iyo xaaskiisii Shannon waxay ahaayeen qoys dhalinyaro ah, waxayna lahaayeen 2 gabdhood oo yaryar oo lagu kala magacaabi jiray Bella oo 4 jir ahayd iyo Celeste oo 3 jir ahayd. Shannon waxay lahayd uur 15 isbuuca marka laga eego baraha bulshada, gaar ahaan Facebook. Qoyskani waxay u muuqdeen kuwo aad isu jecel oo nolol farxad leh ku nool. Shannon waxay maalin kasta soo gelin jirtay muuqaalo iyada iyo caruurteeda. taariikhdu markii ay ahayd Agoosto 13, 2018, Shannon ayaa kasoo laabatay safar shaqo ah abaaro 8 habeenimo ama 2 habeenimo. Subaxdii xigtay, mid ka mid ah saaxiibadeedii oo ay shaqo wadaag ahaayeen ayaa isku dayday inay taleefanka ka wacdo, laakiin way qaban weysay. saaxiibteedii way welwashay, waxayna tagtay guriga Shannon. Markii albaabka laga furi waayey ayay u yeertay booliska. markii booliska ay yimaadeen waxay u yeereen ninkeedii Chris oo shaqada ku maqnaa. Chris wuxuu furay gurigii, laakiin Shannon iyo 2deedii gabdha meelna lagama helin. baabuurkeedii, shandadeedii iyo taleefankeediiba waxay yaaleen guriga dhexdiisa. maalmihii xigay, Chris wuxuu waraysiyo siiyey telefishinno waaweyn ee dalka Mareykanka isagoo ka codsanayay in xaaskiisa iyo xaruurtiisa ay guriga ku soo laabtaan. Laakiin booliska iyo dadweynihii daawanayaba waxay isku raaceen hal shay: Chris uma muuqan qof murugaysan ama walwalsan. wuxuuna u hadlayay si aad u qabow, isagoo xitaa mararka qaarkood dhoola caddeynayay. booliska waxay durbadiiba bilaabeen inay baaritoonkooda u soo jeediyaan Chris. waxayna baareen taleefankiisa, waxayna ogaadeen xog uu qarinayay. Chris wuxuu xiriir jecel oo qarsoon la lahaa gabar ay wada shaqaynayeen. baarayaasha booliska ayaa Chris mariyey mashiinka lagu ogaado beenta oo la yidhaahdo polygraph test, waana uu ku dhacay markii su'aal adag la weydiiyey ee la tusay caddeymihii taleefankiisa laga helay. Chris wuu qirtay xaqiiqda naxdinta lahayd, wuxuuna qirtay in habeenkaas markii ay xaaskiisu safar ka soo laabatay uu weydiiyey inay kala tagaan ama isfuraan. muran dhex maray kadib wuxuu ciijiyey xaaskiisii Shannon ilaa ay ka dhimatay. kadibna wuxuu meydkeedii saaray baabuurkiisa shaqada, wuxuuna ku qaaday 2diisii gabdhood ee yaryaraa iyagoo nool. wuxuuna geeyey goob shidaalka laga soo saaro wuu ka shaqayn jiray oo magaalada ka baxsan. halkaas ayuu ku dilay 2diisii gabdhood, isagoo meydadka gabadha ku riday booyad waaweyn oo shidaal ku jiro. si aan loo helin meydkii xaaskiisana wuxuu ku aasay meel ciid ah oo isla goobtaasi u dhow. sababta ugu weyn ee Chris falkan u geystay waxay ahayd isagoo doonayay inuu ka takhaluso qoyskiisa si uu nolol cusub ula bilaabo gabadhii ay wada shaqaynayeen, isagoo aan doonayn wax mas-uuliyad ama ciyaalka daba ooynayo aysan jirin. markii la horgeeyey maxkamadda, Chris wuxuu qirtay dhammaan dembiyada lagu soo oogay si uu uga baxsado xukunka dilka ah. maxkamadda ayaa ku xukuntay xabsi daa'im ah, isagoo aan weligiis xabsiga ka soo bixin noloshiisa inta ka dhiman. qisadani waxay adduunka tustay cashir aad u weyn ee dadka bannaanka ka muuqda inay yihiin kuwa ugu naxariista badan, waxayna marka qaarna qarin karaan sirta ugu xun. haddii aad ka heshay tabinta xaqiiqada ku salaysan, fadlan subscribe saar kanaalka, hana ilaawin inaad like taabato si ay muuqaalada dad kale u gaaraan. maxaad ka aaminsan tahay dhacdadan? qaybta kommentiga igu reeb fikradaada. Thank you so much.